laakiin taasi waxay isbedeli kartaa markaad adigu hadasho, markaad adigu muctaqadkaaga iyo diintaada difaacato, markaad adigu soo bandhigto nebi maxamed wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam. waxaan rabaa inaan tilmaamno cayda nebi maxamed la caayaya inaanay boos ku lahayn, bale xagjirnimada reer galbeedka qaybo ka mida waxaa ka mid ah maanta France inaad maxraqadii yuhuudda wax ka sheegtaa waa xadhig, kuwii wax ka sheegayna waa la xidha. maalan qaar taariikhda qore qaar ka mida waxay yidhaahdeen 60 milyan may gaadhaynin dadkii yuhuudda meesha lagu dilay. cilladu waa maxay daliilkiinnu? waxay yidhaahdeen yuhuuddii jarmalka iyo intan degganaydba 6 milyan ma gaadhaynin taariikh ahaan markaannu xisaabino. saa daraaddeed 6 milyan hadda may odhanin lama gubin, waxay leeyihin tiradaa inta ka yar. ka muslim ahaan aniga hadduu ninkii gubay qiranaya uu leeyahay 6 milyan baan gubay, iqraarku dee waa markhaati madoon, waa gubteen baynu leenahay, dan kama lihin. inaan idhaahdo yuhuud 6 milyan lama gubin waxba igama saaraa. hitler inuu faashista ahaa ama naazist ahaana muranku ma jiro. hadday reer yurubku qirtaan oo yidhaahdaan 6 milyan oo dadaannu laynay, inkaar baa qabteen baynu leenahay. ma waxaan u difaaca ma yaallo. laakiin waxaan tilmaamayaa in la yidhaahdo mas'alo dhacdo uun xaqiiqo min xaqaa'iq dunya ka mida haddaad ka hadashana bini aadam dhaawac bay gaadhsiinaysaa. yuhuud la yidhaahdo 15 milyan dunidoo dhan markay joogaana, nebiyullaahi moxamed oo 2 bilyan oo qof rumaysan tahay marka la caayana waa xorriyatulkalaam inay noqotiyo xorriyatulqowl. oo maxaa tan kale xorriyatulqowl u noqon weyday? waa marka lagu doonayo. soomaalidu maxay odhan jirtay? la jiifiyaano bannaan. wadaad baa ul taagay bay soomaalida odhan jireen. marka la rabana waxaa la odhan jiray la jiifiyaano bannaan. waa la jiifiyaano bannaan sida u taalla. miidiyaha iyo bulshada iyo waxoo dhammi wixii aanay doonaynin indhaha way ka laabtaan. ninka reer galbeed ee waxgaysta malafkiisaa la baadhaayo, maalinuun dhakhtar ma tegey. dad buu leeyahay haa wuu waallaa, beri buu dhakhtarka la kulmay. adiga ka waalani hadduu wax dilo waa muslim terrorist u ahaa. hadduu waalan yahay uu ka soo baxo meesha uu ka soo baxo cidi faylkiisa dib uma eegto. idan waa la jiifiyaano bannaan baynu leenahay, laakiin taasi waxay isbedeli kartaa markaad adigu hadasho, markaad adigu muctaqadkaaga iyo diintaada difaacato, markaad adigu soo bandhigto nebi maxamed wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam. laakiin haddaad adba xishoonayso isleeday talow nebigii miyaa dee ma doodi karaysid maxaad tidhaahdaa? haddaanad adba nebigaagii garanaynin dee ma difaaci karaysid. waa marka labaad, haddaanu adiga qalbigaaga ku weynayn dee dadka kale wuu weynaa kama dhaadhicin karaysid. hadduu adiga qalbigaaga ku weyn yahay gaalkan yare dhafoorrada xiirtay oo aad dhafoorrada ka daba xiiranayso, oo gaalka surwaalka dabada dilaaciya waa qalbigaaga ku weyn yahay, adna surwaalka dabada dilaacinayso. laakiin haddaad cumaamad ama koofiyad xidhato nebi armaad u ekaataabaad silada yaan dadku ku garanin. saacinkaa maaha, yaan dadku ku garanin ee koofiyadya. idan hadduu agtaada ku weynaan waayo adigu waxaad rumaysnayd, adigu diinkaagii iyo waxaad rumaysnayd hadduu agtaada ku weynaan waayo, dadka kale agtooda nebi maxamed ha ku weynaado suurtagal maaha. markaynu innagu nebi maxamed weynayno calayhi salaatu wasalaam ayaa dadka kalena weynaynaya. innagay xilkeenna tahay markaasi. dadka in badan baan ogaynba wuxuu ahaa. intaanaan ka warramaynaa waa in taariikh baadhay oo wax baratay oo wax eegtay. laakiin dadka inta badan dee miidiyahaasa u warrama, maalinna sawir yaroo qaldan soo saaraya, maalinna hadal qaldan soo saaraya, kaasaa u warramaya. markaa dadku saasuu u rumaysan yihin. idan waa xil idinka idin saaran inaynu bashariyada u sheegno nebi maxamed inaanu weynaynoo qurhe inuu yahay rasuulkii loo soo diree badbaadin lahaa aakhiriya adduunba, inuu muxamed yahay calayhi salaatu wasalaam. sala allahuma cala nabiyi muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalam, walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.